kulan looga hadlayay xaaladda guud ee abaaraha gobolkani Daawa ayaa ka qabsoontay xafiiska maamulka degmada Mooyaale oo lagu lafagurayay xaaladda abaaraha gobolka Daawa ka jirta. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen xubnaha guddiga abaaraha ee gobolka Daawa iyo guddiga abaaraha heer deegaan ayaa ahaa mid laga wada arrinsanayay dadaalada laga wado ee loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo jawaab celinta ilaa iyo iminka laga sameeyay guud ahaan degmooyinka ay abaartu saameysay ee gobolkani Daawa. Gudoomiyaha maamulka degmada Mooyaale Mudane Bishaar Aadan Kiyaato, madax kooxeedka kooxda gurmadka abaaraha ee xafiisyada heer deegaan Bukhari Maxamed Baaruud, Mudane Siyaad Ibraahim Yuusuf oo warbaahinta deegaanka Soomaalida u waramay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay si habsami leh u socdaan gurmadka loogu jiro samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen. tiim ka socda heer deegaan oo ah tiimka taakuleenta iyo gurmadka abaaraha ayaa na soo gaaray. tiimkii kolay waan kulannay kolay maadaama aan kulannay warbixin baan kala qaadanay. ayaguna marka howlaha ay u socdaan iyo gurmadkii iyo taakuleentii ay u socdaan bay soo dhigeen. haddana waxaan iswareysanay kolay wixii ka degma ahaan annagu degma ahaan maamulku ay xaaladda abaaraha kaalintoodii ka qaateen yaa marka isweydiinay. kolley annaguna wixii kolley biyo dhaanka hadday noqoto waa waxaan 8 bilood ilaa 9 bilood ku howlaneen ee aan ummadda u dhaaminaynay. dhinaca kale howlfulinteenna iyo mishaarkeennana intaan jarnay bulshadiina meelaha qaar intaan gaarsiin karno aan raashinka gaarsiinay. booyadihii aan kireynay iyo kolley intaasoo bilood soo howlgalayay marka iyo calafkii haddaan soo iibinay degma ahaan oo haddaan qabalooyinka gaarsiinaynay. marka kolley annaguna waxqabadkii kaalinteenna aan ka qaadanay dardargelinta abaarta taas aan marka ku howlaneen taas ayaan warbixinta siinay. iyaguna kolley inay nala joogi doonaan taakuleentii iyo gurmadkii abaaraha inay nala shaqayn doonaan bay soo dhigeen. kolley shalaytana galabnimadii waxay gaareen dhowr qabale ayay gaareen iyagoo soo indhaindhaynayo dhibaatada jirta iyo sida xooluhu dhammaadeen iyo wixii dhan iyagoo soo indhaindheeyo ay soo laabteen. waxaan ahaa tiimka gurmadka abaaraha ee gobolka Daawa. tiimkaasoo ma garanaysaa maanta waxaan la kulannay maamulka ma garanaysaa degmada Mooyaale, maamulka gobolka Daawa, annagoo ka arrinsanay xaaladda abaareed oo xog wareysi la yeelanay maamulka gobolka ayna nooga warbixiyeen xaaladda gurmadka abaaraha ee gobolka ka jira, xaaladda guud. waxaan isla qaadanay inaan goobaha ugu sii daran ee gobolka inaanu gurmad ka samayno annagoo xogtii ka duulayna gobolka ayna siiyeen inaan gaadhno in biyo dhaanka iyo si guud biyo dhaanka gobolka meelaha ugu sii daran ee biyo dhaanka u baahan inaan biyo dhaanka gaarsiino, inaan gurmadka raashinka ee xukuumaddu ay ugu tala gashay annagoo oo eegayna ma garanaysaa xaaladda guud inaan sida ugu habboon ee ugu degdegsi badan inaan u gaarsiino dhammaan meelaha ugu sii daran ee baahiyaha iyo ma garanaysaa xaaladda abaaraha ay ku baahsadeen. waxaan kaloon ma garanaysaa iyadana xoogga saaranay tiim xafiiska xoolaha ka socda ee gobolka Daawa in daaweyn uu ka bilaabo oo maanta isna soo gaadhay gobolka Daawa iyada oo xoolaha la daaweynayo wixii ma garanaysaa xanuunada ka dilaacay ma garanaysaa daaweyn guud annagoo ka bilaabayna. taasna maanta way noo hirgashay oo waan isla qaadanay. waxaana ugu qorannahay si guud gobolka inaanu degmooyinkiisoo dhan inaan marro annaga oo ma garanaysaa dardargelinayna dhinaca maamulka suuban hadday noqoto, dhinaca hadday noqoto sektarada kala duwan ee ka qayb qaadanaya maadaama xaalad guud lagu jiro in gurmadkaan iska kaashanno gobolka ilaa heer degmo. annagoo guddiyadii la kulannay guddiga abaaraha oo kale guddiyaa jira, guddi aan ku xoojinayno waxaa jiray gurmadka abaaraha iyagana oo heer gobol aan ka dhisnay. annaga oo iskaashanaynana waxaan isla qaadanay si guud inaan uga howlgalno waxqabad la taaban karana inaan ma garanaysaa dadkeenna tabaalaysan inaanu muddada aanu ma garanaysaa gobolka joogno inaanu micnihii ka geysano doorkanaga. si guudna waan isla qaadanay inaan xaaladda sii dardargelino. si aad la socotaan baryahan in deegaanku qorsheeyey in 11 ka kooban yahay deegaanka oo loo diray tiim isku dhaf oo ka kooban xabasyo kala duwan iyo xildhibaanada oo ay bixiyaan dhanka taakuleenta iyo xoojinta iyo dabagalka arrimaha gurmadka abaaraha ay hadda degmooyinka wadaan. marka guud ahaan tiimku hadda wayna soo gaareen xarunta gobolka ayna la joogaan. marka waxay xoojinayaan tiimku mustaqbalka shaqooyinka hadda ka socda
ee ku saabsan gurmadka abaaraha sida dhanka maamulka suuban hadday tahay dhanka biyo dhaaminta hadday tahay dhanka calafka xoolaha hadday tahay iyo inay daraasayaan baahida dhabta ee ka jirta gobolka ayay marka ka socdaan tiimka waxaan rajaynaynaa marka in gurmad cunto iyo calafka xoolaha isugu jira ayna soo gaari doonaan baan rajaynaynaa. Ugu dambayn guud ahaan degmooyinka gobolkani Daawa ayaa jawaab celin degdeg ah laga sameyn doonaa waqtiyada nagu soo aadan goobaha sida daran abaartu u saameysay ee gobolkani Daawa isla markaasina loo kala eegi doono sida ay u kala daran yihiin waxaana qorshaysan in calafka xoolaha iyo raashin ay soo gaari doonaan waqtiyada nagu soo aadan. Bashiir Cabbaas Cali, warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV, Mooyaale.